maamulka sare ee dalladda iskuulaadka albushra culimo waalidiin iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay daafurka maxadka islaamiga ah ee rayaan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee laga furo xerada xagardheer. maxadka ayaa leh qayb boodhin ama jiifa iyo qayb kale oo ay ardadu maalintii dhigan karaan. maxadka ayaa sidoo kale leh qayb dugsi hoose dhexe ah oo ay ardadu ka baran doonaan culuumta maadiga ah oo ku baxaya manhajka waxbarasho ee dalkan Kenya. culimo iyo waalidiin ka hadlay madasha daafurka maxadka rayaan oo ka mid ah dalladda iskuulaadka albushra ayaa soo dhoweeyey furitaanka maxadka. waxaan marka hore u mahadcelinaynaa rabbigii ina khalqay subxaanahu wa tacaala, cimrigan iyo caafimaadkan ina siiyey, islaamnimada ina siiyey, meeshan inoogu soo keenay. isagaas mahad ma aan la soo koobi karin buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala fii kulli waqtin. bacd allaahi mahadda ilaahay markaan u celina kadib waxaan u mahadcelinaynaa dadkii fikirkan iyo dhismahan iyo nidaamkan ka dambeeyey oo aad wada garanaysaan kulligiin, yaan iyagana u mahadcelinaynaa. ka soo qaybgalayaasha oo dhallinyaro iyo hooyooyinkii iyo culimmadii iyo odayaashii iyo dhammaan khiyaarta ka soo qayb gashay nooc kastay yihiin, iyaguna waa mahadsan yihiin. intaa kadib wixii hadalaha waa la yidhi. anigu waxaan ka hadlayaa munaasabadda inagu cusub haddaan nahay reer xagardheere. intan inaguma filla, weliba kuwo kalaan usii baahan nahay. taxfiid boodhin ah oo qur'aan ilaahay diintiisii lagu baranayo oo ilmihii weliba lahayn hayo macallimiin kafaa'a leh oo dadaal leh oo waalid ah oo macallinna ah. macallin waxaa jira macallina laakiin aan waalid ahayn, iyo macallin waalidna ah macallinna ah. ilmaha u turaya, u naxariisanaya, xanuunkiisa midka habeenkii qandhaday og. waa mas-uuliyad culus, ilaahay baana laga heli karaa. ilmahaaga waxaad ku aamini kartaa inaad adigu haysato, laakiin macallinka waxna barahaya hayana waa qaali, wax la heli kara maaha. waadna arki doontaan oo idinka laftiinu meella kama jirtaan oo waad imanaysaan oo waad arkaysaan wixii hadda xaaji uu ka sheekaynayay. indhihiinaa macallin idinku noqon doona insha allahu tacaala. meeshan waxbay soo kordhinaysaa. adduunka waa wax la soo kordhiyo. waa in hadda meesha waa degannahay 30 sano la degan yahay. 30kii sano ee la deganaa kolba waxbaa inuu soo kordhayay, kolba waxbaa inoo imanayay, kol shar baa inoo imanayay. waqtiyo waxaa jirtay qur-aanka hala baabiye la yidhi oo ha lagu daro iskuullada. waa laga hortegey. kolba marxalaan soo maraynay. taxfiid boodhin ah waa marxalo cusub isaguna. waa kana hadda aan fadhino xafladiisii aan maanta u fadhino wey. annaga oo qaybta dacwada iyo tacliinta islaamiga odayaasheedii ah, waxaan si weyn oo farxadi ku dheehan tahay usoo dhawaynaynaa tan iyo wixii kale oo dacwo oo islaami oo la furhayaba waa soo dhawaynaynaa. waan ku faraxsannahay. aad baad u mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum. waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynaynaa, usoo dhawaynaynaa dadka ka shaqeeyey inay xafladan oo lagu furayo maanta mid ka mid ah waxyaalo aan hore uga jirin xagardheer oo ah iskuul taxfiid oo boodhin ah. weli xagardheer lagama furin ba hadda ka hor. waa marka koowaad taariikhda. marka waxaan aad u soo dhawaynaynaa, uguna faraxsannahay annagoo bahda waxbarashada ka mid ah inay maxaan ku ihahdaa machadkaas uu hergalo, ilaahayna uu ka dhigo kii macnaha lagu barakoobo arday iyo wiilal iyo gabdhaba wanaagsanba soo saara. adduunka meel kastoo la joogo dadka markay joogaan waxay la waday wax ka bedelan marmar in la keeno waa qurux badan tahay, wayna fiican tahay. walaalaha ka shaqeeyey inay wixii hore bal qaabkii hore qaab ka duwan inay waxbarashada u dhigaan ama taxfiidyadii hore oo ka jira xagardheer si ka duwan inay u maamulaan. horta caqligooda iyo xoolahooda Allah u barakeeyay ay ku fikireen. waxaa waaye adduunkan mar kasta hor baa loo socdaa. in lala socdo hadba dabeesha meesha u socoto oo aan laga dib dhicin ayadana waa wax muhiim ah, waana loo baahan yahay mar kasta. intaa waxaa dheer sideeda waxa laga hadlayo waa diin iyo quraan.
qur-aankana sidiisaba waa waxa ugu horeeya oo ilmaha tarbiyada in la baro loo baahan yahay qofaan aan tarbiyada ama qur-aanka aan cunugan si fiican usoo baranin inuu mustaqbalka inuu wax noqdo way yar tahayba hadda waxaan u malaynayaa meesha aan joogno iyo bii'ada aan joogno kolley waalidiinta wada garanayaan ilmaha taxfiidka iyo qur-aanka macnaha yaqaano oo la baray ilmaha kale maskaxaana way ka fiican yihiin markay berri saa iskuul ku dhameeyaan ninkaas ila diro ma saas dirayo ku shaqaysanaya ama iskuul ha galo ama taxfiid ha furto ama dugsi ha furto waa u shaqaysanaya marka waalidka waxa laga rabaa sideedaba waxbarashada ilmaha kali in la keeno maaha wax badan ay u baahan yihiin madax salax ay u baahan yihiin waxay u baahan in laga warqabo tashiiraad badan ay u baahan yihiin marka waalidkan waxa laga rabaa markasta inay si hoose oo la socdaan wixii meesha ka jiro cunugii maxaan ku raaddo xag waxbarasho tahay haddii xag dhaqaale tahay haddii macnaha maxaan ku raaddo labiskiisa iyo moralkiisa tahay dhan kasta in ilmaha loogu dadaalo ilmaha yararka ah markii lagu barbaariyo diinta iyo dhaqanka wanaagsan mar kasta way ka fiican ilmaha kale waa ilmo mar kasta ummadan hadda adduunka dadkan ordayo dhan waxaa maamulaya ninkii ilaahay u qadaray laakiin inta badan waxaa maamulaya dadka ilaahay ummadani u soo saaray oo dadka wax bartay ah waxbarashadana midda ugu muhiimsan waa midda islaamka waa iyo diinta qofka inuu barto ma aha oo kaliya luqadaha iyo ama maadi kali ma aha waxa ugu muhiimsan oo la rabo ardayga ama ilmaha inay bartaan waa diintana waxaa lagu bartaa waxay u baahan tahay sabar qofka waalidka inuu ku sabro waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta badan ee quraanka kariimka lagu takiidinayo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo midda kaleeto waxaan hadda ka hor waqti sii horeysay aan ka soo qayb galay shir oo daafurka albushra ahaa shirkaas marka ayada dadweynuhu way nala yaabanaayeen dadka wax bartaa way nala yaabanaayeen waxay wadeen in iskoolkan albushra academia ayadoo lala yaaban yahay runtii waxaan ka qayb galay dadkii ugu soo horeeyay oo ardada keenay ilmaha keenay waan ku barakownay waan ku faa'iisnay ilmo badan baan ka soo saaray maaragtay iskooladan albushra academia xafladan hadda maanta naloogu yeedhay taxfiid alquraan waxaan rajaynayaa sida albushra 1 bay ahayd 2 bay noqotay 3 bay noqotay 4 bay noqotay 5 waa sii dhaaftay waxaan rajaynayaa boodhino kale oo xerada gudaheeda inaad maaragtay aynu gaadhno ilmahana hala keenaan leeyahay insha allah waalidiinta saasaan farayaa siiba hooyooyinka waxaad moodaa sidaynu uga soo qaxnay Soomaaliya in odayadii maaragtay ay kaalintooda xoogaa gabeen marka haweenka insha allah hala dadaalo ilmaha hala keeno midhadhalkana waynu arki doonaa hadda ilmo oo meel la dejiyey oo macallinkii dhex joogo oo habeenkii la seexanayo oo qur-aankii la barayo oo taxfiidkii ku jira maasha allah wax la heli kara maaha marka waalidiin ay ku dadaala siiba hooyooyinka xafladan hadda maanta naloogu yeedhay taxfiid alquraan waxaan rajaynayaa sida albushra 1 bay ahayd 2 bay noqotay 3 bay noqotay 4 bay noqotay 5 waa sii dhaaftay waxaan rajaynayaa boodhino kale oo xerada gudaheeda inaad maaragtay aynu gaadhno ilmahana hala keenaan leeyahay insha allah waalidiinta saasaan farayaa siiba hooyooyinka waxaad moodaa sidaynu uga soo qaxnay Soomaaliya in odayadii maaragtay ay kaalintooda xoogaa gabeen marka waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta macallimiinta dhammaan waalidka ka soo qayb galay xalfadan wayna ku mahadsan yihiin sida loo abaabulay iyo sida xalfada loo soo hagaajiyay midaan mid lamideena xagareer waa ka rabnay waligeennana waa ka rajaynaynay waana runo ardaydii way naga habaabsan yihiin xagareer joogo waan ku rafaad qabnaa dugsiyada qaar ilmihii lama daryeelo ilmihii lagama warhaayo quraac hadday tahay hadday daahitaan tahay dhinac walbo waa kaga dhibaato qabnaa macadkan oo kale waa rajaynaynay in noola furo oo ardayda noola keeno ciyaalkii dhammaan faafi academy waan soo dhaweynaynaa waxay ku hana qaaday waana ka filaynay intaan in ka badanna waa filaynaa waana rajaynaynaa in la sameeyo muslimiinta dhammaan
kaalinta koowaad waa in qur-aanka kariimka ah ilmaha la baro oo maxaa la dhihi jiray subaxii waaga markuu baryo cunuga soo kicisid salaada tuka tiraahdid cadayaysa tiraahdid waalidka guriga joogo laga rabaa siiba hooyada aabbo wuxuu ilmo ka ogyahay inta badan ma lahan qaradan aan joogno xagar dheer waxa ku sugan oo maanta arday ciyaalka haayo oo ciyaalka maanta ka warqabo oo mas'uuliyadda ciyaalka haayo waa maamooyinka waxaan ka codsanaynaa in ciyaalkii hadday madraso tahay hadday dugsi tahay hadday iskuul tahay inay ilmaha ka gaabinin oo ilmihii ay u diraan oo ilmihii ay ka warqabaan oo ilmihii ay daryeelaan hadduu tiim aado hadduu meel ka baxo culayska waxa saari kara waa hooyada maantana ilaahay wuxuu qadaray inay yihiin hogaankii diinta iyo maadiga labadaba oo caqliga maanta la igu helanayaa kooda uu yahay waayo diintaa sida ah qofku hadduu diin barto ama diin leeyahay waxba kama dhumaan laakiin hadduu diin laawo yahay waxba uma hagaagaan waa gebigebi waxaan idin leeyahay raggan kulligood yacni cilmiga ay maanta wataan oo wax ina ku barayaan oo wax ina ku dhigayaan oo ina ku hogaaminayaan waa kii ay ka soo barteen diinta islaamka maadi iyo diiniba ayagaa hogaaminaya waxaan marka idin leeyahay ayagana kuma aaminen shalay markii naloo keenayay oo waxaa la dhahaa war waa gaalaysiinaya xagay ka tuuyan baa laakiin maanta ma lihiidin waxay yihiin inay run sheegaynay oo waxaan dadka baraynay ay wax saxa yihiin waa horta maanta dareemaysaa marka waxaan rabaa inaad waalidow dadaashid lana shaqaysid ninkaad ilmahaaga u keentid oo wax la qabatid haddaad ka hartid ilmahaaga haddii adaa dayacay lamana socon kartid waxaa jira ilmaha waxaad u diraysaan iskool waxaad u diraysaan qur-aan waxaad u diraysaan barayfad waxaad u diraysaan asagoo cayaar buu leeyahay wuxuu leeyahay saaxiib buu leeyahay shaydaan baa la xiriira intaa ma u qaybsami karaa ilmuhu uma qaybsami karo marka waxaa la rabaa ilmaha macallimiinta iyo maamulka haya iyo waalidku inay wada hayaan waa idinkana waa idinka tagna caqli maaha maamulaha maxadka rayaan sheekh maxamuud xaaji axmed ayaa waalidiinta iyo dadweynaha la wadaagay hannaanka waxbarasho ee maxadka cusub ee rayaan xelada waxaan ku soo kordhinay annagoo bacda albushra qayb ka ah oo aad ku barateen aan rajaynayo albushra schools inay tahay iskuulkii koowaad ee barefad ah oo tayadiisu marka ay sarraysay in laga fulay xeryaha qaxootiga hindiso fiican bay alxamdulilah baaray tagtay cabdiweli hadda fadhiya waynoo hindisay waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro aamin dhah qofkuna bulshada markuu wax ku soo siyaadiyo wuxuu inagu mudayay waxa ugu liidata nebigu wuxuu dhahay inaad dhahaa jazaaka allahu khayr aljazaa sidaa daraaddeed arday badan nairobi maraan tegey iyo tiimamka albushra ka soo baxay iyo maalin meel ku kulana taqriiban rag culamaa oo nooc kasta leh oo mid kasta sanadkiisu ay ku dhoway 10 sano oo iskuulkana ka soo baxay qaybihiisa ayaa meel ku kulana oo wax ilaahay lagu mahadiyo annagoo qaybta albushra qayb ka ah ayaa waxaan ku soo darnay taxfiidka qur-aanka ah oo dhowr qaybood ka kooban ama waxbarashada oo 2 qaybood ka kooban asaaska koobaad ee hoolka maanta ay fadhino ama qaybtan ay tahay baarka ugu sarreeya waa qur-aanka kariimka ah baarka yacni waxaa weeye waa ahmiyadda koowaad ee la rabo in la siiyo sidaa daraaddeed wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood qayb waa qayb jiif ah waa hool ka bedelayaan ardaydu waxaan rabnaa dugsida qur-aanka hadday ahaan jireen jaygad ama bacyar hadday ahaan jireen inayn ka dhigno dugsiga qur-aanka ah inayn ku bilowna dhagax tusaama waxaa la rabaa waxa ugu sarreeya waa shay inagu qiimaha badan moogta marka waxaan rabnaa inayn ka dhigno
qodobka koobaad dhagaxayga ka dhigno meesha ugu sarrayso hadday diri jirnay cunug duuf leh oo wasakh leh inayn dirno cunuga ugu nadaafadda fiican hadduu ahaan jiray cunuga ugu hooseeya inuu noqdo cunuga bulshada hogaamiya bulshada iyo diinta islaamkuna waa saas ogaada xibati fillah sidaa dabadeed qayb waxay ka kooban tahay waxaa la waa boarding ilmuhu way seexanayaan da-du waxay ka bilaamataa 8 jir ilaa 15 jir ardayga boardingka gelaya da-diisu waxay ka bilaabanaysaa 8 jir ilaa 15 jir bay ku agta ardaygaas wuxuu leeyahay 3 waxyaalood qaybta koowaad qur-aanka kariimka ah oo hadduu cunugaas aan waalidka ku hesheeno 15 jus inaan u xifdisiiyo inaan 15 jus oo halka ayaa laga helay oo haddii la yaabaa ka wara xaajiyo lacagtii baa celinay kaalmada koowaadna ilaahay weydiisaana haddaan waalidka ku heshiino waalidow cunugaada waxaan kuu baraya 10 jus 10kii halka waa in laga helaa haddaan ku heshiino soddonka qur-aanka ah soddonkii qur-aanka ahaa waa in laga helaa maca daalika mar haddaan shuruuddaas waxaa nin durbaantooy ayaaq dambe haddaan shuruuddaa gelayo waalidka marka hore aan isu imaanayno isku soo gudbayni sidaa daraaddeed ardaydaas waxay leeyihiin qur-aanka kariimka oo xifdigiisa wata waalidka waxaan ku heshiino laakiin ahmiyadda koobaad qur-aanka kariimka oo xifdigiisa uu igu leeyahay waa kow wuxuu igu leeyahay iskuulkii cunugii haddaan 2 sano hayo ama 3 sano aan hayo ama 4 sano aan hayo cunugii xaafid uu yahay qur-aankii kariimka u yaqaano indhaha la iskama tuuri karayo cunugii shalay iskuulka laga soo saaray inuu cunugii dib ooga dhaco oo biri u dhaani qur-aan kaliya naqaanaay indhaha la iskama tuuri karaya maadiga wax laga maarmi karaya ma soo ma luqadii waa loo baahay soo ma noloshiiba ah moogta sidaa daraaddeed cunugii markuu 3 sano ama 4 sano ama 2 sano intuu qaato ama 1 sano uu ku jiro meesha hadduu iskuulka galaas 1 ku ahaa ama galaas 2 ama galaas 3 ama galaas 4 kama arayo imtixaanka hadduu hadda ahaa 6ka kuwa lagu jaangooyo grade 6 sidaasuu ku fadhiisanaya okay marka qur-aankiina uu ku xifdisan yahay waxay ku heshiinay oo ku ciidaya waxay ku heshiino qur-aankiina uu ku xifdisan yahay waxaa loo yaqaana iskuulkana fasalka uu ku ah ayuu ku yahay waa faa'iido maaha wuxuu kaloo igu leeyahay cunugaas waxaa loo yaqaano macadka oo dacmaan rajeeyay halka madrasada loo yaqaana laakiin badana u badan culumada sharciga islaamka ah oo cunuga hadduu ahaa ictidaadi ama ibtidaai hadduu ahaa ama sagaal hadduu ahaa uusu dib kaaga dhicin oo halkiisa uu ku tegayo qaybta waxbarashada cunug intaas ugu leeyahay xagga kale usoo laabto wuxuu ugu leeyahay qado wuxuu ugu leeyahay quraac wuxuu ugu leeyahay casho waa xagga cuntada xagga kale usoo hayso wuxuu igu leeyahay cunugaas in aan hayo oo mas-uuliyaddiisa aan qaado oo hadday wax gaaraan anigu mas-uuliyaddiisa layga rabo ilahay noo kaalmeeyo aamin ah waxaa laga rabaa tibihiisa inaan u jaro waxaa laga rabaa cadaygiisa waxaa laga rabaa dhardhaqaalkiisa waxaa laga rabaa cidiyo jabkiisa soo sheegi sayidiisa joodarigiisa shaydawadiisa dharka kabedelkiisa dharka udhiqimaysa kabedelkiisa adaa lagaa rabaa sariirtu ku seexanayo anaa laga rabaa warcad maaha saasaan kala qaybsana shaqadaa waxay ku socon lahayd ma sheegaa xafiiskaas kale laakiin hanixina qur-aanka waxaa le arraxmaan callama alqur'aan qur-aanka barashadiisa maxaa laga horreysiiyey naxariis maaho naxariista ka tegi mayno waxaasoo dhan laga sheegay cabdiweli xuseen maxamed iyo salebaan cumar kaynaan
oo ah maamulka sare ee dalladda iskuulaadka albushra oo madasha soo xiray ayaa ka hadlay muhiimadda uu maxadka rayaan u leeyahay bulshada ku nool xagardheer iyo midhaha laga filayo inuu soo saaro. maxadkan cusub aan ku soo darnay insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii qaybihii hore waxbarashada aan wadnay u guulaysteen kana inuu u guulaysto insha Allah. Allah subxaanahu wa tacaala baan kaalmaysanayna insha Allah kadibna waalidkan uga baahanahay garab iyo hiil. waxaa inoo jiro furitaankan waxaa dheer in la bixin doono report forms oo imtixaanka hadda iskuulka lagu xiray ah oo waalidku markay xafladda dhammaato ay ka qaadan doonaan macallimiinta. qaybtan cusub ee maxadkan ee qur-aanka lagu xifdinayo siduu xaaji maxamuud sheegay qur-aankaa mudnaanta koowaad iska leh. buulkan aad fadhidaan bay carruurtu seexan doonaan insha Allah. wiilasha gabar boodhina ma lahan. tiri cayimaan ugu talagalnay inaan qabanno aan badnayn. sariiraha kuwii iskor saarayo boodhinka loo bartay ma ahan oo waxaan ugu talagalnay maadaama carruurta yar yihiin haddii lis dul saaro cunugdu ka soo dhaca laga yaabaa. sariiro waa nafar nafar dhulkaana la simayaa. sbaceka ujeedaana waa weyn yahay. waxaa dheer 2 qof oo macallimiina oo raga yaa seexanaya gudaha. banaanka ma seexanayaan, ardayda la seexanayaan. mid dhankaasu seexanayaan midna dhankan. solar baa la saarayaa, shaqadii way dhiman tahay. halkaana ujeedaan alwaaxan waa la xirayaa insha Allah, waa la qurxinayaa. solarkaas habeenkii loo shidayaa. carruurtu xilli ay ciyaaraan iyo xilli ay wax bartaan intaba khamiis iyo jimco kasta carruurta seexanayo qaybta iskuulka laga soo dhisayaa. macallimiinta iskuulka diyaar u ah inuu galaaska uu la qabsanayo dhanka iskuulka laga kabayaa. wixii diiwaan gelin oo dhanka iskuulka ah waxaa lagu diiwaan gelinayaa Faafi Academy. halkaasuu kaga jiray. hadda waa ogtahay systemka waxbarashada uu isbedelay. CBC waxa la dowladda ay keentay soo isbedelada socdo waxbarasho maadaama anagu aan waxbarasho u xil saaranahay business kale iyo ganacsi kale ma lihin. soo waan ku qasbanahay inaan u fikirno meel taxfiida oo macahada oo Nigeria ku taala. waxaan arkaynay cunuga maalinka la geeyaa waalidka ugu dambaynayo maalinkuu soo kaxaysanayo oo maalinkuu qur-aanka xifdiyo inta u dhaxaysa hataa ma booqanayo. markaan shuruudaha qoraynay waxaan isku qabanay cunugan rabadaan ka rabadaan yuusan bixin. waalidka 3 bilood hal mar ha u imaado. laakiin waa isnaqaanaa Soomaali baa nahay. hooyada ma yeelaysaa 7 bil iyadoo halkaan degan in cunugeedu ku xareysanaado aysan soo arkin. ma yeeli kartaan? sidaas darteed waxaan idin cunugii hadduu maalin kasta waalidka imaanayo waqtigaa ka dhumayo. saas darteed bishii hal maalin baa lagu ogoli. ama khamiis ka imo ama sabti ka imo ama axad ka imo adigu bishii hal maalinimo aan ahayn maalinkaa lacagta bixinaysa. waa isfahanaa umaleyna adoo lacag wado wax badan ma sharaxi kartid. laakiin maalinkaan lacag wadin waxaa usoo qasdi kartaa inaad ogaatid cunuga nadaafadiisa, waxbarashadiisa, meesha uu seexanayo, cunadiisa intaba. hadduu cunug waalidka degan yahay bilowgaana saarnay J1 oo waalidka u rabo cunug in loo xareeyo laa qayu keenin walaa quraac buu keenin walaa cashu keenin. bishana booqashada halkaa maalin buu ka leeyahay. shuruuduhu waa loo sameeyay ardada seexanayso. dharka la xiranayo ardayga uu inta la imaanayo Soomaali marwada iska nahay baag looma soo xambaarinayo. santuuq baa keenaysaa wax yar oo cayimada lagu soo ridayaa. 2 qamiis surwaal fanaanad iyo surwaal 2 garan iyo 2 buumodes. saliida uu soo rid iyo saabuuntiisa uu ku qubaysan lahaa. tan dharka loogu dhaqayo ma aha iskuulka taa bixinay macadka laga rabaa. booqashada waa halkaa maalin bishii ma ka reebto adigoo ka yimo insha Allah. wixii la xisaabtan iyo waxbarashada iyo cunuga heerku marayo taas waa waalidka inaaba imaatido kala xisaabtid maamulka joogo waa ku qasbanahay. aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa ku mahadsan in maanta uu nolol iyo caafimaad nagu gaarsiiyey in mashruuc noocan aan furno. xaqiiqatan wax weyn weeye oo la rabo Ilaahay in lala hortago subxaanahu wa ta'ala. ummadda barnaamij baan u soo wadnay waxbarashaan u qaabilsanayn
15 sano 16 sano ka hor aad baan ugu faraxsanahay maanta waalidkii 16 sano ka hor aanu hor istaagnay oon u sharaxnay iskuulka Bushra waxa uu yahay oo maanta qaarkood ay hor fadhiyaan iyagoo ka faa'iideystay barnaamijkaas mustaqbal fiicanna ku yeeshay inaan maanta haddana u fadhino mashruuc kale oo waxbarasho oo laga yaabo in aynan nolol dambe oo tan ka mid ah aynan fadhiyo kuwan oo kale mashaariic dambe la furay aynan iska imaanin laakiin maanta aynu u fadhino mashruucan in la furo waa inaan u aragno inay wax weyn tahay waa laga yaabaa inay kula fududahay laakiin in maanta oo barnaamijkani uu bilaabanayo oo la hadal hayo aad ka mid tahay dadkii u horreeyey ee hadalhayntiisa dhageystay oo dhagahooda ay ku dhacday barri markaad aragto miraha meesha ka soo baxay waxaad ogaan doontaa inaad waqti qiimo badan aad soo qaadatay waa ku faraxsanahay inaan ummadda islaamka ah ee xaga dheer joogta aan waqti u soo adeegnay cumrigeennii waqti badan oo ka mid ah aan soo qaadanay hadda mashruucan maanta aan u taagannahay waa mashruuc ka rasmisan ka asalsan ka mustaqbalsan ka quruxsan ka wanaagsan wixii hore ahayno dhan ilaahayna waa ugu dhowaanaynaa subxaana wa tacaala waxa aan ka hadlayno waxa weeye wixii aanu haynay oo waxbarasho ahayd qaybteedii iyo qayb kaloo lagu sii daray waxaan ka hadlayno waxa weeyaan oo macallinka uu inoo sheegay al-ustaad xaaji maxamuud xaaji axmed waa mudiirka qaybtan mas-uulka ka ahaan doona anigu oday guudna waan ahay waalidka meeshana waan ka mid noqon doonaa insha allah oo ubadkaygaan keenaya hadduu la yidhaahdo waalidka xaggiisa markaan ka hadlana insha allahu tacaala xaaji iyo tiimkiisa halkan gaarka gacanta ugu sii haya qayb baynu ka wada noqon doonaa la xisaabtankooda iyo ka warhayntooda mar haddii aynu ubadkeenna ay wada joogaan oo meesha aynu wada taaganahayna qiimay inoo tahay inaynu waqtigeenna iyo caqligeenna meesha aynu ku darno waa looma kala haraan waxaan rabnaa marka insha allah garabkaasi saboodka inaan siino ugu duceyno garab aynu ku siino barnaamijka laga hadlay ee wiilasha ah boardingka ah waa barnaamij wejiga koowaad ee hadda aynu qaabilayno oo qaabilaadiisu ay berri bilaabanayso fasalkiisa waxbarashana ay sabtida soo socota bilaaban doonto mashruucaasi wiilashuu gaar u yahay barnaamijka carruurta subaxii ay imaanayaan 2 saac ilaa iyo 5tii marka galabna ay joogayaanna wiilal iyo gabdho labadaba waa la qaabilayaa intaasaan hadalkii hore aan ku daraya waqtiga tasjiilka iyo isdiiwaangelintu berri bay bilaabanaysaa insha allah fasalka iyo waxbarashaduna sabtidii soo socotay bilaabanaysaa gabdho iyo wiilalba waa la ogol yahay xilligan laga soo bilaabo 2 saac subaxnimo ilaa iyo 11 waxa la xareynayana waa wiilal kaliya waynu ka fakari doonaa waqti dhow inaynu ku hadalno qayb gabdho ah oo gabdho macallimiin ah gabdho mas-uuliin ah gabdho yani maaragtay murabbiyaat ah wax tarbiyanaysa gabdhihii aynu ku aamino u dhiibno waxay u baahan tahay fakarka soo socda insha allah taladeeda hadduu la yidhahdo waana proposal miiska saaran wey waxaan rabnaa marka mashruuca aan ka hadlayno waxaynu inagu xisbi siyaasadeed ma nihin xisbi siyaasadeed ma nihin ninka siyaasiga markuu hadlayo waxaa laga yaanu cirkan roob ka keenaynaa dhulkana zamzam baan ka soo burqinaynaa ciidana waxaan ka dhigaynaa dahab dhagaxaantana waxaan ka dhigaynaa diamond baan ka dhigaynaa waxaas ma ahan barnaamij meesha aan ka hadlayna waa ay tuso itaabsii maanta insha allah bisha aan joogno hadduu la yidhaahdo bisheeda kale markaynu gaadhno sanad aan gaadhno waxaan usoo fadhiisanaynaa halkan hadda maanta arday meesha wax ka barta oo goobtan wax ka baratay oo wax inoo sheegtay ama inagala qayb qaadatay barnaamijka ma jirto laakiin maanta maalinkeeda hadduu la yidhaahdo waxaan u fadhin doonaa ardaydii sanadka naga soo maqnayd maxay barteen maxaa u kordhay dhaqankoodu waa sidee akhlaaqdoodu waa sidee waxyaabaha caqabada inugu noqdo waxaa ka mid a tarbiyeyntii carruurta bii-ada aynu ku noolnahay iyo qaabkaynu u noolnahay qaab aada u qaab daran wey runtii qaxoontiga waa la isku dhex daadsan yahi waa la isdhex yaallaa ubadkii tarbiyeyntoodii waa isdhex taallaa haddaad cunugaaga ku harjado ku rafaado ku silcdo ku daasho ood istiraahdo meel ka soo saar mid kale oo qariban baa kaaga xoog badan qaybta inoogu muhiimsan waxay tahay bal caruur laga soo soocay bii-adii iyo environmentii iyo deegaankii khaldanaaya aynu ku nooleen oo laga soocay oo nooc ka duwan noqon kara ma heli karnaa axmed cabdulaahi jaamac xeryaha dhadhaab